imkana Soomaaliland man hore ugu soconay qabsoomida fadhigii aqalka wakiilada ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida Soomaaliland ee maanta ayaa waxa hareeyay khilaaf u dhaxeeya laba dhinac oo mudanayaasha golaha ah booliska ayaa rasaas kor u riday markii uu buuq iyo gacan ka hadal dhex maray xildhibaanada qaarkood sida uu ku soo waramayo wariyaha BBC-da Hargeysa Sidiiq Burma golaha oo caadiyan furmi jiray 8 subaxnimo ayaa khilaaf siyaasadeed u hareeyay awgeed ilaa 10 iyo barkii furmi waayay ilaa 40 xildhibaan oo ay ku jiraan xildhibaanadii shalay mooshinka ka keenay ay ku doonayeen in lagu dhaqan geliyo xeerka furista ururada siyaasadda ee golaha wakiilada hor yaalla ee madaxweynuhu uu ku soo celiyay ayaa banaanka uga baxay golaha geesta kale waxa gudaha hoolka shirarka ee golaha wakiilada ku sugnaa dhowr iyo 20 xildhibaan oo ay ku jiraan shir gudoonka kuwaasi oo iyagu diyaarsanaa in la furo fadhiga xildhibaanada goluhu ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada dhinac ee fikirka ku kala duwan xeerkaasi ayaa qaarkood buuq iyo gacan ka hadal u dhex maray waxaana goobta yimi ciidanka booliska ee Soomaaliland oo ah waliba kuwa aan ahayn kuwii u gaarka ahaa ee golaha wakiilada saacada kadib ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu golaha fadhigiisii uu furay xildhibaanadii gudaha ku jiray ee hoolka ugu diyaarsanaa waxaana halkaasi ay xildhibaanadaasi ay ku dhageysteen la taliyaasha dhinaca sharciga u qaabilsan ee golaha wakiilada kuwaasi oo maalintii ay fasaxa golahu uu ka soo noqdayba loo dhiibay inay ka soo tala bixiyaan xeerka furista ururada siyaasadda ee muranku uu ka taagan yahay madaxweynuhu golaha uu ku soo celiyay waxaana taladoodii ay noqotay in xeerkaasi aanu dhaqangal ahayn iyagoo oo shuruuc ku sababeynaya isla marhaantaasina ay u soo jeediyeen in golahu uu ka doodo wixii ay ka bedelayaan iyo wixii ay ku kordhinayaanba ay ka fadhiistaan geesta kale waxa la taliyaasha dhinaca sharcigu ay sheegeen in mooshinkii shalay ay ka keeneen xildhibaanadii doonayay in xeerkaasi uu dhaqangal yahay aaminsanaa isla marhaantaasina la dhaqangeliyo uu sharciga uu baalmarsanaa dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Siciid Giire oo isagu ku sugnaa golaha gudihiisa shir gudoonkana la joogay ayaa markii gudoomiyuhu uu shirka furay golaha dibadda uga baxay waxaana uu warbaahinta dibadda kula hadlay oo uu sheegay in fadhiga in la furo ay sharci darro ahayd isagoo ku sababeeyay in kooramku aanu buuxin xildhibaanada badankoodina ay dibadda ay joogeen laakiin Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiyaha golaha ayaa golaha ka dhex sheegay in xeerka doodiisa aan la gudagali doonin balse sharci yaqaanada uu la dhageysanayo doodana la gudagali doono xilli golahu uu isku dhayahay dhinaca kale xeerkan dooda abuuray ee furista ururada siyaasadda ayaa waxa si weyn uga soo horjeestay xisbiyada mucaaradka oo iyagu sheegay in ujeedadiisu dabada looga riixaya ay tahay muddo kordhin lagu doonayay in madaxweynaha loogu sameeyo